dad badan waxaa jira oo xijaaban is asturaayo habeenkiina waxaa jiro inay ka raqiisan yihiin gabdhaha qaqaaban oo ka sharaf badan dhici karto because gabar asturan waxa ka sharaf badan gabar qaaban cid ogolaanaysa ma jirto السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قال لك واحد جنك يسكن سويش أمريكا المقال كله هذا عصب تاعي نقول صوب بير أو سبسكرايب سار أنت بدنا تذكر دعوة وإسكت دعوة وين بحر سي جوك تقول سوات أمريكا ماشي جدون تاو سبسكرايب سار سيدوك كله مقال كا نو لايك رئيسي ومدرن أجاره مركا المقال كله وايد سود بعد سيد المقال سر كسر كتير مقال كم حكوش أبسية أنت مسوول السوشيال ميديا هي ستصيبه هذا الكل اللي هو كتجي اللي هو هذا أول سنين أي كجديد سي ورئيس لا قاعد سيدوك كله حالته waxa sabir saameyntiisa la gashay mid kamid ah wasiirada Soomaaliya siyo wasiir Dubbe sabirkaasi oo ay dad badan qof walba si ayo u fasiray yaani waxa leeyahay maxsu keenay ayada iyo wali wasiir waxaana la sheegay in si toos ah ay sabir u galeen sabirkii Soomaaliya waa taqaanahay waxa la soo dhigay Facebook ayadu leeyahay Miss Wall ma waxay bilowday in wasiirada ay ka waasho xamar ay ka waashay hada wasiirada miyay ku bilaaw rabtaa wasiirada miyay dhiiqo loo u gali rabtaa ay wax la mid ah waa kan sabirka ay la gashay wasiir Dubbe oo kamid wasiirada Soomaaliya sidoo kale waxa jira muuqaal ay la gashay wasiirada Soomaaliya siiba laba wasiir garbeeda laba wasiir baa taagan inta u guda galin hadalka lagu haysto Miss Wall ila daawada bal muuqaalka TikTok soo dhigtay ayada iyo wasiirada Soomaaliya waxaa maqli jiray qof hebel waxba laga ma qaban karo Miss Wall waxba laga ma qaban karo iskaaga hara sida tan baa wasiirada looga waalaya wasiirada baa leeyahay TikTok ila gala wasiirada baa TikTok laga duwaya gabadha iskaaga hara markan waa ka hari wasiirka jiro dhanka midigta waa yaabayano sawir isku ogeen maxaa TikTok aan loo geysay ayuu taagan xalayta social media waxa la waday muuqaalkan iyo sawirkan halka lagu jeedaan iyo wasiir Dubbe ee la gashay ayadoo la leeyahay Miss Wall xamar laga qabto madaxdii bay ka waalabtaa sidoo kale waxa Miss Wall ka soo baxay hadal saameyntiisa wada hadalkaas oo lagu haysto kadib markii ay dhahday gabdhaha qaqaaban iyo gabdhaha asturan waxa sharaf badan gabdhaha qaqaaban hadaba hadalkaasi Miss Wall dabcan uma leeyahay in cid ka ogolaanayso maxaa yeelay gabar asturan iyo gabar qaaban meel isla ma galaan xitaa unugii hadda dhashay xataa halkaas laga mar dhici karo halkaas dabo waa lagu haystaa waxa la leeyahay maxaa ka qaldama gabar qaawan oo soo qaabisay iyo gabar asturan miyaa isbardhigaysa waxa leedahay markada gabdhaha isku qaabi TikTok waxa ka daranay leedahay kuwa beebeen is asturo oo hoos ka wato jinnigooda iyo balaayadooda inta aan muuqaalkan falanqeyn Miss Wall runta u sheegin bal muuqaalka in la daawado xijaab macnihiisu waxa waay mid Ilaahay uu baqaysid maahan mid bilaadan uu baqaysid dad badan waxa jira oo xijaaban is asturaayo habeenkiina waxa jiro inay ka raqiisan yihiin gabdhaha qaqaaban oo ka sharaf badan dhici karto because xijaabka Ilaahay dartiisa loo xirtaa not TikTok in loo xirto soo qofka maanta qaaban waxa laga yaabaa inuu sharaf leeyahay oo qofka xijaabka xiran oo wax xun ku dhax qabanayo soo marka xijaabka Ilaahay dartiisa loo xirtaa TikTok uma xiranaay minteed kale aan xijaab hada xirna ama hada isqaabanayo nolosheeda anay qusaysaa dhiilaha qof wax ka bedeli karnaa malaha laga yaabaa inaa xirto Ilaahay dartiisa u xirto Ilaahay dartiisa mar walba loo xirtaa waxa Ilaahay u xirnaa aan bilaadan kalma tashto xataa hooyada irish kalma tashti horta dadka aan xumada waa inay joojiyaan ani waxa aan saamay maanta ma jirto because TikTok meel waxa waaye yar ila weyn la isticmaalo meel xoriyad ee because qof walba asaale TikTok laakiin waxa dhihi lahayn yani muhiimada maanta TikTok isticmaal muhiimada waxa waaye dadka nimanka naagaha ceebeena muhiimadeena nimanka naagaha ceebeena ay ku qaawan soo gudbeenay nimankaas waa in meelna laga saaraa oo dawladda wax ka sameeyeen dawladda maxaa la ay sheegeen ee qabataa kuwaas muhiimadana ee ma ahan TikTok iyo aaladan yiristi lagu mashquulo waa in nimanka oo dumarkeena u soo labistay in ceebahooda banaanka ay keenaan hadaba hadalkan waxay ka jeedisay munaasabad ay lahaayeen reer TikTok ku sugan Muqdisho waxay dhahday gabdhaha xijaaban waxa ka sharaf badan gabdhaha aan xijaabneen waxay leedahay gabdhahan iska qaabinaya TikTok hala yaabina kuwa asturan baa jira oo TikTok la xajiro oo kaamirada markay hor fadhiyaan soo asturay laakiin markii real life ka la eego ka daran ay leedahay
kuwa aan asturnayn. dabcan miswal waxa dhii lahaa horta hadalka ku qaldan tahay maxaa yeelay inaad dhahdo gabar asturan ayaa ka sharaf badan gabar isqaawinayso. dabcan inuu geer xataa hadalkaasi ma qaadan karo iska dhaaf dadka waaweynka marka hadalkaas ku qaldan tahay gabar asturan oo xaq alla ka asturan fiiri waxa leedahay ay waxba u qarsan okay adiga hadii aad ka waran horteena isku asturtid sida kale real life ka ilaahay dartiis ay isku asturto maxaa loo leeyahay qofkan uu isqaabiyo caadib isku qaabiyo siis kale wanaagsan qoftan kaamirada isku asturtay sida kale xunta halkaas hada soconay ma marka waa ku qaldanta miswal ina gabdhaha asturan aad u gafto maanta gabar loo jeedo inay isqaabinayso social media ku jirto oo la wada arkayo iyo gabar asturan oo loo jeedo in asturanta dabcan anaga miyaan naga dhicinaysaa marka gabadha oo asturan caayino tan isqaabinaysa ina sharafno hadalkaas uu ka tagay social media hadalkaas baa haysto ayadoo lagu haysto hadalkaasina waxa ka jeeday shaleeto munaasabad oo TikTok ay lahaayeen dabcan gabdhihii asturnaa TikTok way xanaaqeen ayagoo leh waxay ka xun tahay in ayada marada ay ka dhacdo anagana sharaf aan leenahay sharafteena ka xun tahay dabcan hadalkaas hadal lagu hadlo ma baaha maxaa yeelay gabar asturan waxa ka sharaf badan gabar qaaban cid ogolaanaysa ma jirto TikTok gabdhahan iska qaabinay cid jecel ma jirto anaga hadii aad doonaysid in anaga gado halkaas oo kale kaami yeelan xijaab macnihiisu waxa waay mid ilaahay uu baqaysid maahan mid bilaadan uu baqaysid dad badan waxa jira oo xijaaban is asturaayo habeenkiina waxa jiro inay ka raqiisiin gabdhaha qaaban oo ka sharaf badina dhici karta because xijaabka ilaahay inay ka raqiisiin kula inay ka sharaf badiyeen gabdhaha qaaban dad waxa jira dhaaday is asturo laakiin habeenkii ay ka raqiisiin kana tumasho badiyeen gabdhaha qaabinay xijaabka ilaahay dartiisa loo xirtaa not TikTok in loo xirto soo qofka maanta qaaban waxa laga yaabaa inuu sharaf leeyahay oo qofka xijaabka xiran oo wax xun ku dhax qabanayo soo marka xijaabka ilaahay dartiisa loo xirtaa TikTok uma xiranaay minteed kale aan xijaab hada xirna ama hada isqaabinayo nolosheeda anay qusaysaa dhiilaha qof wax ka bedeli karnaa malaha sax waa noloshaada ku qusaysaa qof walba noloshiisa u taala laakiin hadhiin gabdhaha is asturay waxa ka sharaf badan gabdhaha qaaban laga yaabaa in xirto ilaa dartiisa u xirto ilaa dartiis mar walba loo xirtaa waxa ilaahay u xirnaa aan bilaadan kalma tashto xataa hooyada irish kalma tashti horta dabcan sidee muqdisho u tagtay miswal way is asturtaa ma sha Allah xilligii ay joogtay Nairobi hadda ismid maaha maxaa yeelay TikTok waxay dhaheen shira qabsanayna gabar walba waa inay is asturtaa shuruud baa lagu xiray laakiin ayadoo saas wasiirada baa laga waalaya golihii wasiirada la ogaa oo ah dad madax ah ayaa TikTok laga duwayaa haddii aad maqli jirtay qof hebel wax ka qabad ma laha waa qoftaan oo kale mobilkii baa la qaatay wasiirada baa loo tagay TikTok ila duwa hadwa wasiiradii qofta markada wax ka qabad ma laha ani miswal waan ka haray sawir waa la galay TikTok baa uu kala kacsaday qofta markada ani waxa dhii lahaa hore u soco